Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawadayaal subax wanaagsan meel walba joogtaan. Taariikhdu maanta waa 25 bishii labaad 2022. Xaaladda Ukraine cirka ayaa isku shareertay ilaa iyo hadda waxa weeye xaaladdu ma degana. Dagaalka ayaa afarta dhinac uga socda dalkaas. Gaar ahaan hadda dagaalku wuxuu ku laalayaa caasimadda Ukraine meel u jidha 40 kiiloomitir. Hadda waxaa qabsaday ciidanka cirka ee Ruushka commandoska nooca dalaayadaha ku booda ayaa kusoo degay iyo kuwa lugtaba. Halkaas waa warshadda ugu weyn ee nuclear-ka xilligii midowgii Sovieti kabacdina marka xorriyadda 91 ay qaateen ay iska wareejiyeen meesha United Nations ka wareejiyeen. Warshadaas waa warshadda nuclear-ka samayn jiray mar dhowtaa lala wareegay 40 kiiloomitir u jidha caasimadda. Dagaalku wuu socdaa, checkpoint-yada u dhow caasimadda oo dhanna waa la soo galay. Madaxweynihii waddankaasuna afka furtay iyo prime minister-kiiba madaxweynuhu wuxuu leeyahay annaga NATO iyo midowga Yurubba qayladhaan ma u dirsanay ilaa hadda waxa noo soo jawaaba male. Waxaan ka codsanayaa yiri dowladda Ruushka in wadahadal arrinta lagu dhameeyo. Kol waa meesha ugu dambeyso hadda uu taagan yahay albaabka ugu dambeeya uu garaacayaa. Wax gurmadana ma hayo, wax taakula ciidanna ma hayo, mid dhaqaalana uusan hayn. Xaaladana hadda waxaa lasla soo galay caasimadda. Aad bay u kacsan tahay xaaladdu, aad bay u kacsan tahay. Caasimadda duqeymo baa ku socda, cir iyo dhul baa ku socda. Gantaalada caasimadda lala dhacayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu mar dhowta TV ka hadlay waxay sheegeen inaan taranka weligeed la arag xilligii Hitler naasiga Jarmalka uu soo weeraray Ukraine in sidaan gantaal loogu garaacay. Gantaaladan hadda lagu garaacay caasimadda waa kuwan abid la arag bay dhaheen saraakiisha ugu sarreysa amniga dalkaas iyo madaxda qarankaba. Daawadayaal xaalad aad bay u kacsan tahay. Hadda mar dhowta diyaarad soo dhacday oo ay leeyihiin Ukrainiyiintu waxay leeyihiin annagaa soo ridnay diyaaraddaas. Caasimadday ku soo dhacday meel ay guri ilaa 12 biyaan oo dabaqa. Waxaa ku dhintay ilaa 9 qof ayaa dhimasho la sheegayaa. Diyaaraddu meesha ku burburtay. Diyaaraddaas waxaa iska leh Ruushka laakiin saraakiisha Ruushka ilaa iyo hadda cid u hadashay ma leh oo arrintaas maaragtay xaqiijinaysa. Laakiin Ukrainiyiintu waxay xaqiijinayaan in diyaaraddaasi soo dhacday ayna ku dhacday town center-ka magaalada Kiev. Daawadayaal xaalad aad bay u cakiran tahay. Dagaalku wuxuu ka socdaa bad iyo biri iyo dhul iyo cir intaba wuu ka socdaa oo weerarka Ruushka ka wadaan. Ilaa iyo haddana wax waanwaana ma jiraan. Waanwaanta keliya oo Putin ugu dhow waxa weeye inuu meeshaas uu qabsado ayaa hadafkiisa iyo go'aankiisu ah. Ilaa uu meeshaas uu qabsado caasimadda dalkaas iyo Ukraine gacanta ku dhigana ma uu joojinayo dagaalka. Horena uu sheegay taas. Xaaladana ilaa hadda ma sahlana. Dhaawacyadii iyo meydadka hadda waxa tir rasmi ilaa hadda lasoo gudbiyay ma jiraan. Aan 9 qof ka ahayn oo shacabka hadda ilaa hadda dhintay. Ciidamada Ukrainiyiintu ayagu waxay sheeganayaan inay isdifaacayaan laakiin sida muuqata waaba lala soo galay caasimaddii baa lasla soo galay. Daafiya caasimadda hadda lasla soo galay. Dagaalkan waxaa u egtay in lagu kala bixi doono ilaa galabtay ilaa caawa in lagu kala bixi doono. Saturday-da waa lagu kala baxayaa meesha haddii la yiraahdo caasimadda iyo agaarkeedaba. Wixii ku xiga Saturday-dana waa xuduudaha ilaa Poland ilaa Romania iyo dhinacaas Yurub ay u jeesan doonaan ciidanka Ruushka si xuduudaha u sugaan dalkooda. Daawadayaal halkaan nagala socotaan waa barta YouTube ku lehna Calaamada 24 Post. Hadda jeer waxaa naga bartay wararka ugu dambeeya caalamka gaar ahaan xiisadda ka aloosan Ukraine iyo Russia. Wararka waxaan soo gudbinaynaa had iyo jeerbaba si ay u soo hordhacaan waana warar ku saleysan xaqiiqda waa warar ku tirkuteena maaha waa warar had iyo jeer aan maaragtay aan ku saleynay maaragtay in aan nin soxno. Marka daawadayaal waxaan ka baahan yahay insha Allah hadii la yiraahdo inaad share gareysaan barnaamijka. Ama santiin.